ugu weyn caawa waxaa ka mid ah midowga musharaxiinta oo maanta kormeer ku tagay daalada diljirka Daasoon oo bari uu ka dhacayo banaanbax loogu soo horjeedo madaxweyne Farmaajo. dowladda federaalka Soomaaliya oo la filayo in saacadaha soo socda ay bandow ku soo rogto Muqdisho. gudoomiyaha aqalka sare ee siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada waqooyi oo sheegay in shirkii Baydhabo ahaa mid loogu heshiiyay dadka ka soo jeeda Somaliland. gudoomiyaha maxkamadda ciidamada oo digniin u diray saraakiisha ciidamada ee maamulka Galmudug. madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya oo maanta Muqdisho u yimid ka qaybgalka shirka uu ku baaqay madaxweyne Farmaajo. madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariim Guuleed oo sheegay in dawladda Soomaaliya caburin siyaasadeed ay ku hayso mucaaradka iyo rabshado ka dhacay waddanka Spain. waa habeenimo khamiis ay ka baxayso jimcana ay soo galayso taariikhdan waxay ku beegan tahay 18 bisha labaad sanadka 2021 warkaas oo dhan Mawlid Xaaji Cabdi ayaa la diyaaraa. waa maasan tahay cali saxiifa habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada qodobada aad dhegeysateen oo faahfaahsan. midowga musharaxiinta ayaa maanta kormeer ku tagay taalada daljirka Daasoon oo bari uu ka dhacayo banaanbax looga soo horjeedo madaxweyne Farmaajo. cali cilmi salaad ayaa faahfaahinta warkan eegaya. madaxda midowga musharaxiinta ayaa galabtay kormeer ku tagay fagaaraha daljirka Daasoon halkaas oo la filayo in berri oo jimcaha uu ka dhaco banaanbax ay iclaamiyeen mucaaradka loogana soo horjeedo mas'uuliyiinta dawladda ee waqtiga uu ka dhacay. madaxda galabta tegay daljirka Daasoon ayaa waxaa ka mid ahaa madaxweynayaashii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed, ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Qeere, gudoomiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, Cabdikariim Xuseen Guuleed iyo Shariif Xasan Sheekh Aadan. inta ay musharaxiinta ku guda jireen kormeerkan ayaa waxaa warbaahinta la hadlay Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ah gudoomiyaha midowga musharaxiinta mucaaradka. waxa uuna sheegay in maalinta berri ah ay tahay maalin taariikhi ah oo shacabka ay ku cabirayaan dareenkooda. madaxweynihii hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed ayaa tilmaamay in banaanbaxa jimcaha uu yahay mid nabdoon oo lagu dalbanayo doorasho wadar ogol ah, isla markaana ay tahay in ciidamada ammaanka ayna carqaladeen oo aysan u arkin qalqalgelinta amniga sida uu sheegay. berri waa maalin taariikhi ah biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. halkan waxaan rajaynaynaa inuu ka dhaco mudaaharaad weyn oo runtii gadaashiisa ay dhici doonto maxay ahaato dimuqraadiyaddii dalkan wakhtiga dheer uu safka ugu soo jiray inuu si dhaba u gaaro, la ilaaliyo sharcigii, la soo celiyo kala dambayntii ayaan rajaynaynaa. marka halkan waxaan rabnaa inaan uga dirno shacabka Soomaaliyeed meelay joogaanba inay ka soo qayb galaan. qodobka labaad waxaan rabnaa inaan la hadalno ciidamada amniga. waa mahadsantihiin, shaqada fiican oo aad haysiin, laakiin waxaan rabnaa inaan idiin sheegno mudaaharaadka waa mudaaharaad silmi ah, waa mudaaharaad nabadeed, waa mudaaharaad lagu xoojinayo dawladnimada iyo sharciga, waa mudaaharaad lagu xoojinayo kala dambaynta iyo amniga. kama soo horjeediyo amni, marka waxaa laydinka rabaa inaadan carqaladayna. waxaa tihiin wiilal Soomaaliyeed, dawladnimadan maalinba cidaa soo haysay. madaxweynaheenna wakhtigiisii waa dhammaaday. maanta wixii ka dambeeya wuxuu ka mid yahay murashaxiintaas xilka mataqaanaa murashaxnimo xilka madaxweynimada u tartamaysa. cid oo colaad gaara u qabta ma jirto, laakiin waxaan rabnaa sharciga inaan wada ilaalino. dadka meeshan jooga xilal waaweyn xilal yararba waa ka soo tageen. waxaan rabaa inaan idhaa kulligooda nin la arkaba madaxweynaha intuu joogay gudoomiyaha Shariif Xasan aan ka bilaabayaa. madaxweynaha waxa uu dhahay xilligaaga waa dhammaaday, Shariif Xasan oo doorasho gal. Shariif Xasan waa ogolaayay, ogolaasho maayo xataa ma tartamin, waa ka tagi. soo been qof kastoo maamul goboleed joogay waxaa la yidhi wakhtiga waa kaa dhammaado soco. madaxweyne wakhtiga waa dhammaaday, waxaan rabnaa doorasho in la aado. waxaa la aaminsan yahay doorashada in adiga caqabad ku tahay, doorashada ka hor leexo. mudaaharaadkan ujeedadiisu waa intaas. qabanqaabada mudaaharaadkan ayaa saacadihii dambe si weyn looga dareemayay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, iyada oo madaxda midowga musharaxiinta ay dadka ka dalbanayeen inay isugu soo baxaan fagaaraha daljirka Daasoon berri oo jimcaha oo saacado un ay ka harsan yihiin. mucaaradka ayaan dhegjalaq u siin baaqii ka soo baxay mas'uuliyiinta dawladda oo waqtiga uu ka dhacay, kaas oo ahaa in bulshada aysan ku kulmin hal meel si looga taxadaro faafitaanka fayraska corona oo maalmihii dambe dalka ku soo laba kacleeyay. madaxda midowga musharaxiinta ayaa dadka ku wargeliyey in wejiga ay soo xirtaan banaanbaxana ay ka soo qayb galaan. mahsaned cali cilmi. dowladda Soomaaliya ayaa la filayaa in saacadaha soo socda ay bandow ku soo rogto magaalada Muqdisho sida ay KNN u sheegeen saraakiil ka tirsan booliiska Soomaaliya. saraakiisha ciidanka booliiska ee degmooyinka gobolka Banaadir ayaa loo sheegay in bari bandow ay tahay magaalada, waxaana taliyaasha ciidanka lagu amray inay dhaqangeliyaan bandowgan. bari ayaa la filayaa in banaanbax looga soo horjeedo madaxweyne Farmaajo uu ka dhaco magaalada Muqdisho, kaasi oo ay soo qabanqaabiyeen musharaxiinta mucaaradka. gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobolada waqooyi ayaa sheegay in shirkii magaalada Baydhabo uu ahaa
mid loogu heshiiyey dadka ka soo jeeda somalilan. xuseen cabdulle maxamed ayaa warbixintan inooga diyaariyey. gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ay garbihiisa taagnaayeen xildhibaano ka tirsan labada gole iyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobolada waqooyi ayaa si weyn u dhaliilay natiijadii ka soo baxday shirkii ku soo dhamaaday magaalada Baydhabo ee gobolka Baay kaas oo la sheegay in isfaham looga gaaray khilaafka ka taagan doorashada Soomaaliya. Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa sheegay in shirkii ugu dambeeyay ee looga hadlayay ayaha Soomaaliya aan marna laga qayb gelin dir iyo beelaha shanaad taas oo meel ka dhac ku ah nidaamka awood qaybsiga oo ay ku dhisan tahay dawladda Soomaaliya. gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo ay ka muuqato culeys badan oo kala kulmayo villa Soomaaliya ayaa sheegay in shirka Baydhabo loogu heshiiyey dadka gobolada waqooyi ee Soomaaliya isla markaana aysan aqoonsaneyn natiijada ka soo baxday shirkaas. wuxuu madaxweyne Farmaajo ku eedeeyay inuu kala dhantaalayo midnimada ummadda Soomaaliyeed. waxaan ka xumahay dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shirarkii ay ku qabanaysay Dhuusamareeb iyo Muqdisho ma ahayn shirar Soomaali ka wada dhaxeeya. shirarkaas laba arrimood unbaa ka muuqata. marka laga fiiriyo dhinaca beelaha waxaa ka qayb geli jiray oo gaar u ahayd beelaha Hawiye, Daarood iyo Digil iyo Mirfle. ma ka qayb geli jirin oo looguma yeeraynin beesha shanaad iyo dir. kaasi waa weji uu lahaa kow shirarkii uu madaxweyne Farmaajo qabanayay. ta labaad waxa la odhanayay waxa ka qayb galaya shirka waxa isugu imanaya dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada. waxaanan u arkaa inayna ahayn shirar loogu raadinayo Soomaali cadaalad iyo midnimo. Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ka mid ah siyaasiyiinta farakutiriska ah ee aan dalka ka bixin isla markaana dhib badan u maray midnimada Soomaali weyn iyo dhismaha dawlad Soomaaliyeed ayaa sheegay in raadinta midnimadaas lagu colaadiyay isaga iyo saaxiibadiis. gudoomiyaha ayaa sheegay in muddo 40 maalmood ah lagu xiray Somaliland isagoo raadinaya wadajirka gobolada waqooyi iyo kuwa koonfur balse loogu abaalguday boob siyaasadeed, caburin iyo dhibaatooyin kale isagoo ka mid ah madaxda ugu sareysa dawladda Soomaaliya. dhalinyaroy waxaan idiin sheegaya bil iyo 9 cisho ayaan Hargeysa ugu xidhnaa midnimada Soomaaliya. 30 sano markii dawlad jirtay markaan ka reebo 30 sano ee dalkani burbursanaa ee dawladdii Soomaaliya ay jirtayna xamar kama aan bixin. dib iyo dheef waxay lahaydba qayb baan ka ahaa aniga iyo kuwa fara badan oo midnimada Soomaaliyeed u taagan. maanta in la yiraahdo ma jirtaan tala kuma lihidin qaranka Soomaaliyeed een u dadaalaynay de waxaan qaadan karna ma aha. waxaan u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed anu marar fara badanna waan ka hadlay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo aniguna waxaan iskuna diidanahay waa dastuurka oo aqalka aan ka ahay gudoomiyaha ma uu aqoonsana dastuurkana sidoo doona ayuu jabiyaa. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ka mid ah aqoonyahanada gobolada waqooyi ee Soomaaliya ayaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool gobolka Banaadir ka dalbaday in loo hiiliyo shacabka gobolada waqooyi oo uu sheegay in loo heshiiyey. heelada shacabka gobolka Banaadir oo ka dalbaday ayuu ku tilmaamay mid ilaalinaysa midnimada labada gobol ee waqooyiga iyo koonfurta Soomaaliya oo uu ku eedeeyay inay ku xadgudbayso villa Soomaaliya. waxaanu leenahay lama heshiine waa la noo heshiiyey haddaanu nahay reer waqooyi. lama heshiine waa la noo heshiiyey haddaan nahay reer waqooyi. haddii dadka Soomaaliyeed gaar ahaan Muqdisho degan iyo Banaadir degan hadday arrintaa ka aamusaanna halisteedu maxay tahay weeyaan. waxaan qabnaa waxa weeye curdankii ama curadkii Soomaaliyeed wuxuu ahaa waqooyi buu ahaa. iyo ka gobonimada ugu hor qaatay iyo kaana heshiis la galay koonfurta si jamhuuriyadda loo bilaabo. haddii markaa iyo ka gobonimaha ku waayaan Muqdisho waxay tahay waran halbowlaha midnimada iyo Soomaalinimada goynayay waay. waa iyadoo la kufsaday qarannimadii iyo midnimadii Soomaaliyeed bay tahay. waa la noo heshiiyey haddaanu reer waqooyi nahay waa la noo heshiiyey ma noo hiilinaysaa. haddii had noo hiilisaana annakuna sidii awalba hanu iniigu hiilinanay ayaanu iniigu hiilinanaa. haddaad naga seexataanna dee annaku meel nijaasa oo qarankii Soomaaliyeed lagu nijaasaynayo oo lagu kufsanayo midnimadii u dulqaadan mayno. wixii nala qumana annakoo midnimada komitidana ayaanu yeeli doonaa. Cabdi Ismaaciil Samatar ayaa banaanbaxayaasha birri iyo madaxda abaabulisa ugu baaqay in banaanbaxooda kaliya uusan ahaanin maalinta birri ah
balse la joogtiyey ilaa uu villa soomaaliya ka baxo madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo sida uu hadalka u dhigay. waxaan leeyahay markaasi mudaaharaad ayaa berri toole ka dhacaya magaalada muqdisho, nabada xasiloon lagu doonayo in xaq lagu helo, xaqa musharaxiinta, xaqa qaranka, xaqa dadweynaha Soomaaliyeed iyo xaqa reer waqooyiba lagu doonayo. waxaan leenahay yuna mudaaharaadkaasi noqon berri oo qura, waa inuu joogto noqdaa ilaa xaqaa la helayo. haddii kale inta berri la isku yimaado oo la kala dareero oo la kala seexdo waxay soo kordhin doontaa ma jirto. marka waxaan ku boorinayaa dadka reer Banaadir intay is ururiyaan si joogto ah mudaaharaadkaasi u socdo ilaa ninka buurta fuushan iyo kuwa la shaqaysta hay caqligu u soo noqdo. qayladhaanta Cabdi Xaashi Cabdulaahi oo ugu da'weyn madaxda hadda talada haysa ee dawladda Soomaaliya ayaa god ku sii ridaysa rajada midnimada ummadda Soomaaliyeed sida ay qabaan dad badan. Cabdi Xaashi Cabdulaahi oo 30 sano dhib iyo dheef la qaybsaday shacabka Soomaaliyeed isla markaana ku mintiday midnimada Soomaali weyn ayaa sanadkii ugu dambeeyay wajahaya cadaadis badan oo uu sheegay inuu kala kulmayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. cadaadiskaas oo sababay in gudoomiye Cabdi Xaashi dhowr jeer uu ka soo muuqday warbaahinta isagoo cabasho ka ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. gudoomiyaha maxkamadda ciidamada ayaa digniin u diray saraakiisha ciidamada ee maamulka Galmudug. Cabdisataar Xaaji Cali ayaa warkan faahfaahinaya. xilli muddooyinkii la soo dhaafay magaalada Dhuusanbareeb ay ku sugnaayeen wafdi isugu jira wasaaradda gaashaandhigga iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute oo la hadlayay saraakiisha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ayaa uga digay saraakiisha ciidamada inay ka qayb qaataan dagaal beeleedyada ka dhaca deegaanada Galmudug. gudoomiyaha ayaa sheegay inay la xisaabtami doonaan cid kastoo ka qayb qaadata horinta dagaal beeleedyada, isagoo tilmaamay in sarkaalkii dagaal beeleed ka qayb qaata dareeska ay ka dhigi doonaan xabsina ay geyn doonaan. waxa kaliya oo aad ku naqan karto laandheere waxa waaye inaad dawladnimada u shaqaysaa, inaad hogaamiye fiican oo ciidanka maxaa la yiraahdaa oo maamulo si hagaagsan u maamula, waa inaad wax ku soo kordhisaa ciidamada, saasa dawladnimada iyo ciidanka dhexdooda laandheere kaga naqan kartaa. marka saraakiisha ama dadka sarkaalkii qabiilkiisa laandheere ma ka raadiyaa, annagana kitaabkeena inta ula kala baxno aan leenahay dareeskii aan ku qaladna marka horena waa ka dhigaynaa, xabsina waa geynaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo. qof haba yaraatee ogaal yar u lahay dadka deegaan Galmudug haddankii iyo dirartii ay la galeen argagixisada iyo siday ugu guulaysteen, qof ogaal yar u lahay in loo sheegaa oo laga dhaadhiciyaa. maanta wiil yar oo jaahil ah oo caasi waalideen ah intis qarxiya saraakiisha ciidamada Galmudug qaybihii ugu muhiimsanay dilay, ama wada dhinaca bamlad lagu aasay wadada dhinaceeda sarkaalkii lagu jeclaa iyo ciidamadiisa ay ku dhinteen. qof ogaay halgankii iyo dirartii meeshaan laga maray iyo sida dadka deegaankani ay kaga soo horjeedeen in ay argagixiso meeshaan waxay rabta ka samayso, qof ogaa lagama dhaadhici karo. hadalka gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa imaanaya xilli qaybo badan oo ka mid ah deegaanada Galmudug ay ka dhaceen dagaal beeleedyo khasaare geystay, waxaana saraakiisha ciidamada qalabka sida lagu eedeeyaa inay qayb ka qaataan horinta dagaal beeleedyada ka dhaca deegaanada Galmudug. madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa gelinkii dambe ee maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka si uu uga qayb galo shirka madaxda dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ee looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka. sidoo kale saacadaha soo aadan ayaa la filayaa in Muqdisho ay soo gaaraan qaar ka mid a madaxda dowlad goboleedyada kale. shirka ayaa la filayaa in lagu saxiixo heshiiska madambeys ah oo laga gaaro arrimaha doorashada kadib markii guddiga farsamo ee ku shirsanaa magaalada Baydhabo ay heshiis ka gaareen qodobadii la isku hayay. dhinacyada siyaasadda Soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe cadaadis iyo baaqyo kala kulmayay beesha caalamka iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay, kaasi oo ah in ay ka wada hadlaan khilaafka ka taagan doorashooyinka dalkana ay ka dhacdo doorasho la isla ogol yahay. madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay caburin siyaasadeed ku hayso mucaaradka. Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa faahfaahinaya. Cabdikariin Xuseen Guuleed madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in shirkii jaraa'id oo qaybo ka mid ah golaha wasiirada uga hadleen maalintii shalay arrimaha corona ujeedkiisu uu ahaa cagajugleyn iyo caburin lagu hayo arrimaha dimuqraadiyadda dalka,
intaas waxa uu raaciyay hadalkiisa in wasiirka amniga taliyaasha militariga iyo booliska aysan hayn shaqadooda ka hadlidda arrimaha corona balse ay jiraan dad kale oo arrimahaasi shaqo ku leh. coronaviruska ama cudurkan halista ah ee fidaya ee dalka ka fidaya dunida oo dhan ku fidaya shalay waxay og tihiin xukuumadda qaybo ka mid ah ayaa shir jira ay qabtay waxay ka hadleen arrimaha coronaviruska iyo xaaladihiisa ay ka hadleen. horta runtii coronavirus hay-adaha ku shuqul waa la yaqaanaa wasaaradda caafimaadka shuqul ku leh wasaaradda warfaafintana maadaama ay tahay afhayeenkii dowladda iyo informationka la rabo in dadka la gaarsiiyahay way soo raaci kartaa laakiin wasiirka amniga maxaa coronavirus xusay taliyaha xoogga dalka maxaa coronavirus xusay taliyaha ciidanka booliska maxaa coronavirus xusay shirkii jaraa'id ee shalay la qabtay shir jaraa'id oo ujeedadiisu ay ahayd in coronavirus iyo khatartuu leeyahay iyo xoogaysiga uu soo xoogaystay in lagu adkeeyo looga dan lahaa haddee waxaan isleeyahay dadkaas ayaga ah wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda warfaafinta dhinacyada iskama soo taagteen fariin dadban oo la dirayo oo dadka in lagu caburiyo la rabo oo dimuqraadiyadda in lagu caburiyo la rabo oo xorriyatul qowlka in lagu caburiyo la rabo ayay ahayd. hadda risaalada ay wasiirada soo gaarsiinayeen waxay ahayd annagu haddaan nahay wasiirkii warfaafinta iyo wasiirkii caafimaadka warkaasaan jeedin haddaad diidaan taliyaha garbayaasheena taaganay waa ujeedaan. madaxweynihii hore ee maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed ayaa hoosta ka xariiqay in dibadbaxa beri ka dhacaya magaalada muqdisho uu yahay mid lagu difaacayo dowladnimada dalka loona baahan yahay bulshada soomaaliyeed inay kasoo qayb galaan iyagoo dhooraya amniga iyo xasiloonida dalka. midda aan rabna berri dadka muqdisho joogaahay inay dhammaantood dareenkooda iyo shucuurtooda muujiyaan oo u soo baxaan oo ay garab istaagaan oo taageeraan waa dowladnimada difaaceeda. waxaan rabnaa marka banaanbaxaas waa banaanbax nabadeed qof kastoo soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan u sheegno nabadda inuu wax ka ilaaliyo degenaanshaha inuu wax ka ilaaliyo fawdo iyo wax kasta oo waddankanaga xaalad aan fiicnayn gelin kara dhammaanteen inaan ka wada fogaano qof kastoo soomaali oo muwaadina oo mudaharaadkaas ka soo qayb galanay sidaas ayaan rabaa inaan u sheego. annagu dad xasiloonida macno ay ugu fadhiso deganaanshaha dalka ee macno ugu fadhiso jiritaanka dalka uu macno ugu fadhiyo ayaan nahay ayadaasaan dhowraynaa ayadaasaan garab taagan. vaad ayaa yimid ama gaab ama firaaq siyaasi ah ayaa yimid waddanku sidiisa ama waddan kastoo adduunka ka mid ah hadduu firaaq siyaasi yimaado fawda imaanaysa. annagana waxa aan diidanahay oo u mudaharaadayno mudaharaadka aan u samaynayno wuxuu yahay firaaqaa siyaasiga ah aan diidanahay inuu waddanka galo midku hadda ku jiraan rabnaa inuu ka baxo. masar guuleed ayaa shaaca ka qaaday in maanta mid ka mid ah musharaxiinta xilka madaxweynaha soomaaliya barnaamij uu ku qabsan lahaa magaalada muqdisho laga hor istaagay arrintaasina ay tahay mid sharciga ka fog. xil doorashaa lagu jiraa xilli kaambeynaa lagu jiraa madaxweynaha kursiga joogahay wuxuu leeyahay doorashadii in lagula tartamo ayaan rabaa. maanta idinla hadlayo nin murashaxiinta ka mid ah ayaa qado oo hoteelada muqdisho mid ka mid ah uu rabay inuu ku qabsado oo dad kondomeeye lixdameeye inuu kula hadla uu rabay baa loo diidoo laba sugid warqad keenta waxay tiri qadadaa lama qaban karo. waa maanta madaxweynaha noocaasa madaxweyne in lala tartama raba maya madaxweyne in doorasho qabta raba maya madaxweyne dimuqraadiya raba maya ma aha. doorasho waa la yaqaanaa xilligeeda waa inuu political space waa in dadku inay hadli karaan inay tartami karaan inay campaign samaysan karaan inay abaabul iyo ololo samaysan karaan in loo ogolaado. madaxweynuhu hadduu rabo berri in mudaharaadka la joojiyo hadduu rabo wax jiro dhan in la joojiyo idaacadda ha yimaado ha hadlo ha yidhaahdo wax kasta oo ay dadku rabaan diyaaraan u ahay mucaaradka inaan la hadlaan diyaar u ahay inaan maaragtay political space kuraan diyaar u ahay doorashada inay xaq iyo xalaal noqotaan diyaar u ahay halkaas ha yidhaahdo. muxuu guriga iskugu xirayaa oo maalmaha uu usoo dirayaa wiilasha iyo gabdhaha uu usoo dirayaa. waxaan rabnaa mar labaad iyo mar saddexaad inaan ku celinoo nidhaahno madaxweyne waqtigaaga waa dhammaaday waxa meesha aad ku joogi kartaa waa sidii shalay lagu doortay oo saxda ahayd oo sharciga ahayd oo xalaasha ahayd inaad hadna meesha ku joogto ama si sharaf leh meesha aad ku wareejiso. magaalada muqdisho ayaa waxaa ka soconaya abaabulka banaanbax maalinta beri ah dhacaya
kaasi oo looga soo horjeedo madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo. halka warkaasi caawa aad ka dhegaysanaysaan waa idaacadda kulmiye ee muqdisho. markana caalamka, rabshado ayaa ka dhacay dalka Isbayn iyadoona booliiska dalkaasi iyo shacabka ay rabshado dhex martay. ugu yaraan hal qof oo dumar ah ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhaawacantay isku dhac dhex maray booliiska iyo dad banaanbax ka dhigayay. haweeneyda ayaa lagu soo waramayaa inay haleeshay rasaas caag ah oo ay ciidamada booliisku isticmaalayeen intii lagu guda jiray isu soo baxa oo ka dhacay magaalada Barcelona, sida ay qortay wakaalada wararka AB maanta oo Khamiis ah. wargeyska Isbaanishka ee El País ayaa kasoo xigatay kooxda Eredaya ee u dooda xuquuqda aadanaha in dhaawac uu ka dhashay booliiska oo adeegsanaya awood dheeri ah, midaasi oo shuruucda ka baxsan. dhakhaatiirta caafimaadka waxay sheegeen inay baarayaan inta uu la eg yahay dhaawaca gaaray haweeneydaasi. dadka ayaa waxaa si weyn ay uga caroodeen kadib markii booliiska dalkaasi Isbayn ay tacaddi u geysteen qof u dooda xuriyadda gobolka Catalonia ee dalka Isbayn, kaasi oo doonayay in uu ka madax bannaanaado Isbayn inteeda kale. waanaga intaa warkii caawa ad ka dhegaysanayseen idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho. waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkeena ee nabadgelyo.